Puntland iyo Somaliland ayaa war-saxaafadeed iska soo horjeeda ka soo kala saaray dagaalkii maanta gelinkii hore ee ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ku dhexmaray deegaanka la yiraahdo Qadha oo 18 kiiloomitir u jira tuulada Yoob ee gobolka Sanaag. Labada maamul ayaa mid kasta sheeganaya in uu guulo ka gaaray dagaalkaasi oo uu ka dhashay khasaare kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray, balse aan weli si rasmi ah loo xaqiijin. Puntland waxa ay sheegatay iyadoo ka jawaabaysa duulaankii lagu soo qaaday dhulkeeda in ay dagaalkaasi ku qabsatay 50 maxaabiis ah, hub iyo gaadiid dagaal oo ay wateen ciidamada Somaliland. Waxay sheegtay Puntland in dagaalkaasi ujeedkiisu ahaa sidii loo khalkhalgelin lahaa ammaanka gobolka Sanaag. Dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay afhayeenka ciidamada militariga ee Somaliland ayaa lagu sheegay in dagaalkaasi ciidamada Somaliland ay ku qabsadeen hub iyo maxaabiis ka tirsan ciidamada Puntland. Somaliland waxay dhankeeda iska fogeysay in ay lahayd mas'uuliyadda dagaalka iyadoo ku riixday dhinaca maamulka Puntland. Warar ka madax bannaan oo ay heshay TV-ga Gole ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu bilowday israsaaseen dhex martay ilaalada guddoomiyaasha gobolada Sanaag ee labada maamul ee kala matala. beesha caalamka ayaa si degdeg ah ugu baaqday in dib loogu laabto sharcigii doorashooyinka Soomaaliya ee dhowaan la meelmariyay kadib markii ay sheegeen in sharcigaasi uu ku guuldareystay in si cadaalad ah loo dhan yahayna loogu wada qayb qaato. beesha caalamka waxa ay tilmaamtay in sharcigaasi uu saxiixay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbuucan gudihiisa uu ku guuldareystay inuu qeexo matalaadda haweenka iyo xuquuqda iyo arrinta Somaliland. Bayaankan ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan uu walaac ka muujiyay arrintan, wuxuuna u gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ka digay haddii aan wax laga qaban arrintani in ay caqabad ku noqon karto xaqiijinta doorashooyinka hal qof iyo hal cod. bayaankooda bulshada caalamka waxa ay ugu yeertay dowladda iyo guddiga doorashooyinka iyo qaybaha kale ee quseeya in ay ka tashadaan oo ay si degdeg ah wax uga qabtaan arrintani sharcigaasi quseeya. Wararka laga helaya gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in xoogag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku lahaayeen meel aan ka fogeyn degmada Garissa. Inkastoo aan la ogeyn tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay weerarkani, haddana warar ka soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkani, waxaana war ay ku soo qoreen warbaahintooda ku sheegay in ay gudaha u galeen ciidamada Kenya islamarkaana ay burburiyeen agabkii ay ku howlgalayeen ee xerada u yaalay. Wararkani ayaa imaanaya xilli maalintii shalay taliska Mareykanka ee Africom ay sheegeen in ay dileen xubno ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab oo ay ku lug lahaayeen weerarkii bishii hore lagu qaaday saldhigga Mandibay ee gobolka Waqooyi Bari ee xarun u ah ciidamada Mareykanka.